كسو دوادا الشيكدي كن هبين يهبين وشيك عجيب إليقسوا عنه وشوى وشاهش على ورقص فرجلي وغرد القمر يصيح ملل في ملل ولو تراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجل والناس ترجم جملي في السوق بالقلقلل والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي لكن مشيت هاربا من خشية العقنقل إلى لقاء ملك معظم مبجل waxaa yiri bari hore ayaa waxa jirinin boqoraha Allah ya boqoraha boqortooyo aad u balaaran xukum jiray waxaa yiri xaaskiisa boqorada wadanka ah ayaa ku xumaato gogol af sameysay waxaa yiri boqoradii ayuu waxa uu ku xukumay in kulka laga gooyo oo la dilo sidii baana lagu dilay boqorkii ayaa maalintii dambe waxa uu yeeray wasiiradiisa wasiirkii ugu sareeyay waxa uu ku amray in habeen waliba gabadh uga baahan uu guursado u keeno sidii ayuu wasiirkii ku yeelay amarkii boqorka oo habeenkii ugu horeysay u keenay gabadh uga baahan oo aad iyo aad u qurux badan boqorkii ayaa habeenkii gabadhii la aqalgalay oo loo sameeyay aroos aad u heersareeya hadaba arooskaasi maxaa ka dambeeyay aroortii markii la soo toosay ayaa waxa uu amray in gabadha kulka laga gooyo halkaas ayaa gabadhii aroosada ahayd lagu dilay markii wasiiradii ay weydiiyeen sababta uu gabadha u dilayna waxa uu yiri si aan gabadh kale oo dambe ay khiyaamin habeen walba gabadh baan la aqalgalaya aroortiina waan dilaya haddana maalintii dambe ayaa gabadh kale loo keenay markaasuu habeennimadii la aqalgalay haddaba muxuu sameeyay aroornimadii markii la gaaray ayuu sidii tii hore dil ugu xukumay markii uu muddo 3 sanadood ah uu waday ayaa wadankii hablihii uubka noqdeen wax la dilay iyo wax wadankii ka horday oo waalidkoodu la baxsaday maalintii dambe ayuu ninkii wasiirka uu magaaladii oo dhan ka soo waayay gabadh ugu baa uu u geeyay boqorka isagoo aad u walwalsan oo ka baqanaya boqorka oo ku adkeeyay in haddii uu habeen qura gabar u keeni waayo in isna kurka laga goon doono ayuu gurigiisa ku soo noqday wasiirkii waxa uu dhalay 2 hablood oo aad u qurux badan oo la kala oran jiray Saarsaad iyo Dunyasaad waxayna ahaayeen 2 hablood oo aad u edeb badan maskax iyo fahmo Ilaahay ku manaystay waxay ahaayeen 2 gabdhood oo si fiican wax u bartay gabadha weyn ee Saarsaad oo ku takhasustay suugaan iyo luqadaha waxa ay haysay sheekooyin aad u badan waxayna lahayd hibo ah xurunta sheekooyinka khiyaaliga ah oo ay si heer sare ah oo aan laga xiiso go'aynin ay u xurun jirtay Saarsaad ayaa aabaheed ku tiri aaba maanta maxaa kugu dhacay aad baad u murugsan tahay markaasuu wasiirkii u sheegay arintii iyo sida uu boqorka u amray ee uu ka doonayo Saarsaad ayaa tiri aaba hawlwalin ee aniga iigay boqorka i guursadee waxayna tiri aaba hadii Ilaahay ila qabto aniga ayaa badbaadinaya hablaha ugubka ee wadankeena من لتم ورد الخجل فقال لا 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 وقد غدا مهرولي والخوض مال اضطربا من فعل هذا الرجل فولولت وولولت ولي ولي ويللي فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل وفتية سقونني قهوة كالعسل لي شممتها بآنفي أزكى من القرون وزيرك ayaa inantiisa ku yiri aaba kuma qoro inaan ku waayo oo kurka laga gooyo marka waa inaan wadanka ka baxsanaa oo aynu sida ugu degdega badan u baxnaa Saarsaad ayaa tiri ma yaabo aniga iigay boqorka oo ii dhiscaawa aniga ayaan aqaan sida aan ugu badbaadiyay sidii ayaa Saarsaad loogu geeyay boqorkii oo habeennimadii arooska loo qaban qaabiyay boqorkii ayaa aad iyo aad ugu farxay markii loo keenay inantii wasiirka oo quruxdeeda dadka oo dhan isla dhexmari jireen markii boqorka la soo galbinayay walaasha Dunyasaad la sii dardaaranto oo la sii barantay waxayna ku tiri walaal marka boqorka la iigeeyo ayaan waxaan boqorka ka codsan doonaa illa ii ka keeno oo aad u heliso markay habeen noqoto waxaad igu tiraahdaa walaal habeenka horteena waa uu dheer yahay maad sheekooyinkaagii xiisaha lahaa inoogu maaweelisid sidii ayaa Saarsaad boqorka loogu geeyay oo aroos aad iyo aad u wanaagsan loogu sameeyay markii boqorka la horgeeyay ayaa tiri boqorkeedii oo qaaliga ahaayo waxaan ka codsanayaa inaad ii ogolaato in gabadhiga yar ee aan walaalahan ahayn ee Dunyasaad ila joogto aan caawa heshado boqorkiina codsigaas waa uu ka ogolaaday markii habeen noqoto ayay Dunyasaad ku tiri walaashad Saarsaad walaal habeenku waa uu dheer yahay maad sheekooyinkaagii xiisaha lahaa ee macaana inoogu maaweelisid caawa Saarsaad ayaa sheekadii bilowday markaasuu boqorkii xiise aad iyo aad u qabatay sheekadii oo uu ku macaansaday sheekadii oo uu dhageysanayay gacantii ayuu dhabanka saartay oo dhanka dhinacyada waayay markii waagii soo dhawaaday ee sheekadii meeshii ugu xiisaha badneed marayso oo uu boqorkiina isleeyahay maxaa xigi doona ayay Saarsaad tiri boqorkeegiyo waagii ayaa soo bariyay ee sheekada halkaa inoo joogto oo aynu seexano
boqorkii oo aad iyo aad u xiiseynaya sheekada oo meel aad u wanaagsan u maraysa ayaa halkaa ku nabadgeliyay Saarasaad habeenkii ugu horeysay sidee ayay muddo kun habeen iyo habeen ugu sheekeynaysay oo boqorkii sidoo habeen walba isku lahaa bal horta sheekadani macaan ha ku dhameyso oo ogow halka ay sheekadani ku dhamaato ayay la fogaato waqtigii dhamaadkii sheekadii kun habeen iyo habeen صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر مع مزار لحظ المقل وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي فكم تيمني مزيل عقيقلي قطفته بوجنة من لثم ورد الخجل فقال لا 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 وقد غدا مهرولي والخوض مالت طربا من فعل هذا الرجل فولولت وولولت ولي ويلني فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل dhamaadkii sheekadii kun habeen iyo habeen markii ay Saarasaad sheekadii ugu dambeysay ka sheekaysay ayuu boqorkii intuu madaxa aad u lulay yiri waxay ahaayeen sheekooyin qiimo leh aad bay qalbigayga iyo maskaxdayda u galeen oo ay u soo kordhiyeen farxad iyo riyaaq dadii aad ii sheekeynaysay ee ahayd kun habeen iyo habeenka waxaad ii soo nooleysay farxad iyo waqti hore oo tagay oo aad taariikhdoodii dib u soo nooleysay waxaan ka faa'iideystay xikmad iyo garasho dhaadheer oo badan oo ku saabsan qofka bini'aadamka ha noqdo boqor taajir ama faqiir dhibaatooyinka nafteeda haystay ee ay gubayay ayaad iga duulisay sida ay caaryaantu u duusho markay cadceedu qabato waxaad ii soo nooleysay farxaddii iga dhimatay sidoo kale waxaad ii siisay jaceyl xad dhaaf ah Saarasaad ayaa hoos ula hadashay walaasha Dunyasaad markaasay intay maqaasinkii ku noqotay u yeedhay gabadhii jaariyad ahayd oo soo qaaday laba inan oo mataana ah oo laba jir ah Saarasaad ayaa gabadhii ka qaaday oo u dhiibtay boqorkii waxayna ku tiri boqorkeegiyow cimrigaaga Ilaahay ha dheereeyee iga gudoon labadani caruur ee aan ku dhalay ee Ilaahay ina siiyay Saarasaad walaasheed oo caruurta dhaqaaleyn jirtay marka ay walaasheed boqorka u sheekeynayso ay maaweelinayso ayay boqorkii ku tiri ma intaad walaashay kurka ka gooso ayaa boqoradani yaryarka hooyo la'aan dhigi doontaa boqorkii ayaa isagoo indhihiisa ilmo ka da'ayso yiri gabadhii yari Saarasaad waa gabadh qiimo leh waxaan kugu dhaaranayaa intaan caruurta yar ay ii dhashay aragba qalbigayga ayay qaadatay waana gabadh marwo ah oo qiimaha weynimo iyo maskax Ilaahay siiyay nolosheediina waa iftiimisay waana boqoradii wadanka ee marwadeeda noqonaysa Saarasaad ayaa boqorkii ku tiri waxaan ka codsanayaa inaad aabahay u cida dirtid si uu u ogaado inaad iga nabadgelisay dilkii oo uu farxadda ina la qaybsado boqorkii ayaa markiiba amray in loo yeero oo si maamuus leh loo soo kaxeeyo oo loo keeno daarta boqortooyada waxaana isla markiiba ay gacanyarayaashiisii boqorka keeneen odagii Saarasaad uu aabaha ahaa markii uu daarta boqorka soo galay ayuu boqorkii oo albaabka ku sii sugayay si uu u xurmeeyo ayaa salaan aad u qiimo badan ku salaamay waxa uu ku yiri Ilaahay ayaa qadaray in gabadhii Saarasaad noqoto ooridayda sidii ayuu habeennimadii dambe uu boqorku u qabanqaabiyay xaflad ballaaran oo maamuus ah taasoo magaalada oo dhan la iftiimiyay oo leerar kala jaad ah iyo ubaxyo lagu qurxiyay sidaas ayay barigii dambe ku wada noolaayeen Saarasaad iyo boqorkiiba guud ahaan waa naga intaa sheekadii kun habeen iyo habeen قطفته بوجنة من لثم ورد الخجل فقال لا 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 لا, لا وقد غدا مهرولي والقرب ضربا من فعل هذا الرجل فولولت وولولت ولي ويلني فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل وفتية سقمتني رحمة كالعسل شبهتها بها نفيها شوى وشاهش على ورقص فرجلي وغرد القمر يصيح ملل في ملل ولو تراني راكبا على حمار أهزل يمشي على ثلاثة كمشية العرنجل والناس ترجم جملي في السوق بالقلقلل والكل كعكع خلفي ومن حويللي لكن مشيت هاربا من خشية العقنطر إلى لقاء ملك معظم مبجل
يأمرني بقلعة حمراء كالدمدمل أجر فيها ماشيا مبغددا للديل. أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصل، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدبل، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل.